xalay saqdhexe ayaa warqado iska soo horjeeda waxay kasoo baxeen xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaana warqadaasi loo arkayay in carqalad ay ku yihiin habsama socodka howlaha doorashooyinka dalka. warqada ugu horeysa kasoo baxday madaxweyne farmaajo xafiiskiisa ayaa waxaa lagu sheegay in ugu horeyn uu aqbalay xilka qaadistii lagu sameeyey taliya Fahad Yaasiin oo horey u ahaa taliya hay'adda nabad sugidda sirdoonka Soomaaliya, xilkana looga qaaday kiiska Ikraan Tahliil Faarax. madaxweyne farmaajo waxa uu magacaabay gaashaanle sare Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud inuu haatan noqdo taliyaha nabad sugidda sirdoonka Soomaaliya si ku meel gaar ah, wuxuuna horey u ahaa taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir. sidoo kale madaxweynaha waxa uu magacaabay Cabdirashiid Muuse Cali wuxuuna u magacaabay xilka agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka. sidoo kale farmaajo ayaa Fahad Yaasiin oo xilka laga qaaday dhowaan waxa uu magacaabay la taliyaha dhinaca amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya. warqadan xalay saqdhexe ayaa kasoo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliya taasoo loo arkayay in carqalad ay ku tahay howlaha doorashooyinka dalka iyo sidoo kale shaqooyinka horyaala xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo la xil saaray howlaha doorashooyinka dalka. si lamid ah warqadta jawaab ah waxay xalay saqdhexe kasoo baxday xafiiska Maxamed Xuseen Rooble ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta ee dalka, waxaana ugu horeyn lagu sheegay in madaxweyne farmaajo uu aqbalay shaqo joojintii lagu sameeyey agaasimihii hore ee hay'adda NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. ra-iisul wasaaruhu wuxuu faray agaasimaha guud ee ku-meel gaarka ee NISA Sarreeye Guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashir Goobe in si degdeg ah u bilaabo shaqadiisa. sidoo kalena saraakiisha hay'adaha amniga ee sirdoonka iyo nabad sugidda Soomaaliya wuxuu ku amray in si buuxda ay ula shaqeeyaan agaasimaha cusub ee hay'adda Sarreeye Guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashir Goobe. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu ummadda Soomaaliyeed u muujinayaa in qoraalada kasoo baxa madaxweynaha ay muujinayaan in weli uu daba socdo mas-uuliyaddii doorashada ee amniga oo ku wareejiyay ra-iisul wasaaraha. waxaa kale ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo walaac ka muujiyay tallaabooyinka uu qaaday madaxweynaha waqti ka ilaalay ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu la sheegay in yihiin kuwa lagu carqaladeynayo in si dhammaystiran lagu gaaro kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo horey hay'adaha cadaaladda iyo sharciga looga hor istaagay inay baaris ku sameeyaan kiiskaas. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu arkaa wax laga xumaado in xuquuqda muwaadinka Soomaaliyeed la siyaasadeeyo taas oo ah dhaqan halis ku ah hanaanka dowladeed ee dalka, waana in lagu waantoobo cid kasta oo ku fikiraysa arrinkaas ayaa lagu yidhi qoraal xalay kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuu mar kale ku adkeeyey xeeraalintii maxkamadda ciidamada qalabka sida inay dadalgeliyaan howlaha baarista kiiska Ikraan Tahliil Faarax degdegna ay horkeenaan maxkamadda awoodda u leh. warqadaha kasoo kala baxaya xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxay yihiin kuwo saameyn ku yeelan kara howlaha siyaasadda dalka iyo doorashooyinka, waxaana warqadii xalay kasoo baxay ay ahayn kuwa aada u culus islamarkaana laisku adeegsaday hadallo aada u culus. waxaana sidoo kale laga saaray xalay qoraal kasoo baxay xafiiska madaxweyne farmaajo telefishinka dowladda taasoo la arkayo in amarkaas uu bixiyay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble sidai ay aaminsan yihiin dad badan oo siyaasiyiina. waxaa la aaminsan yahay khilaafkan haddii uu sii socdo inuu dib u dhigi karo howlaha doorashooyinka dalka.